السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو wanaagsan ku soo dhawaada Somali Network Group oo idin la diyaara inay idin soo gudbiso maadooyin ku baxaya networking ee afkiina hooyo ee Soomaali ah maanta casharkeena wuxuu ahaan doonaa protocols maadaama aan soo aragnay LAN aan soo aragnay mataqaana DHCP server aan soo aragnay switches now waxaan qaadan doonaa protocol waa maxay protocol okay Somali Network Group ayaa waxay idin soo gudbinaysaa maanta cashar ku saabsan routing protocol casharka ugu horeeya aan qaadan doono oo dynamic ah waa routing information protocol RIP markii la soo gaabay RIP loo garanayo waana isra waa dynamic distance factor routing protocol way matrix wax ku xisaabiyaan waa hop contact waa 15 waa version 2 iyo version 1 iyo version 2 ayuu u kala baxaa version 1 ma support gareeyo mataqaana authentication iyo mataqaana iyo subnetting version 2 wuxuu support gareeyaa waa authentication wuxuu kaloo support gareeyaa subnetting RIP updatekiisu waa 30 second hold timekiisu waa 90 second flashkiisu waa 28 time outkiisuna waa 180 administration distancekiisuna waa 120 bal aan aragna sida aan u cover gareyn karno RIP anagoo isticmaali doona laba magaalo sida Muqdisho aan Kismaayo waxaan marka hore mataqaana arkibaynaa maadaama hore u soo aragnay sida router switch PC DHC server la isku xiro aan casharada hore aan mataqaana ku soo wada aragnay hadda waxaan aan si toos u cover gareyn doonaa routerka anagoo ku xiri doono Muqdisho ku xiri doono magaalada Kismaayo haddaba waxaan soo qaadanaa console board si aan ugu xirno laptopka ayaan ka dhaxgali doonaa routerka aan idin soo dhaweeyo si aad mataqaana si fiican ugu aragtaan okay waxaan routerkan u bixinaynaa Muqdisho configuration terminal waa enable configuration terminal hosting ayaan leenahay magacaan siin doono waa Muqdisho okay كودر وإنا IP address هنا routerka interface كيس أنت عن serial كأو جدا interface fast internet 0/0 IP address 10.0.0.1 255.0.0.0 وجلس no shutdown automatically وحوجد اللينك إنه up نقطة configuration terminal interface serial 0/0 IP address 192.168.0.1 وجلاس C 255.255.255.0 no shutdown encapsulation case waa inaan BB ka dhignaa BBB waa open standard HB na waa waxa iskale mataqaana routerada mataqaana fiska kaliya marka waxaan qaadanaynaa open standard oo BBB ah calculate case na waxaan ka dhigaynaa 64,000 exit inta waxaan ku cover gareynay router Muqdisho waxaan u tageynaa Kismaayo waa inaan isku xirnaa marka hore Muqdisho iyo Kismaayo okay waa marka hore waa inaan soo qaadanaa serialka ama mataqaana ku xiri lahayn Muqdisho serial 0 to Kismaayo serial 0/0 waa inaan Kismaayo mataqaana asagana sidoo kale aan ka soo galnaa routerkan console boardka laptopkeena terminal okay good ay soo dhaweey F9 marka koowaad waxaa leedahay no enter halkan imaada enable configuration terminal waa inaan hostname siinaa hostname Kismaayo interface waa inaan qaato internet 0/0 20 IP address kiisu waa inaan siinaa IP address 20.0.0.1 255.0.0.0 waa galas no shutdown activate waa serialkan waa inaan siinaa configuration terminal
interface serial 0/0 IP address 192.168.0.2 maxaa yeelay labada IP address waa inay same ahaayeen kan muqdisho iyo kan kismaayo serialka u dhaxeeya same IP address waa inay leeyihiin inay yihiin no difference markaas communication wax communication oo ka dhaxeynaya male waa inay same IP address leeyihiin marka waana galaas C waxaan isticmaalaa 255.255.255.0 no shutdown encapsulation kaas waxaan soo siinay same BB waa inaan siinaa calculate 64,000 exit okay hadda labada waa isku xirnay mataqaanaa labadii router oo kala ahaa muqdisho iyo kismaayo now wax communication oo ka wada dhaxeeya ma ay jiraan waa inaan u sameynaa protocolkaas oo hagaya mataqaanaa u sahlaya in ay wada shaqeeyaan labada branch waa muqdisho iyo kismaayo marka waa inaan muqdisho tagnaa okay waxaan idiin soo dhaweeyay si aad si fiican ugu aragtaan okay router dheh rep network ayaa network aad ku configuraysay your routerkaaga keliya un baad ku configuraynaysaa waxaan soo siinay waa 10.0.0.0 network 192.168.0.0 intaas un baan leedahay waxaan tegaynaa asagana u laabanaynaa routerkii ahaa kismaayaan tegaynaa asagana sidoo kale aan idin weyneeyo aan idin soo dhaweeyay si aad u aragtaan router rate network ay leedahay intaan sidoo kale 20.0.0.0 network ay leedahay 192.168.0.0 exit hadda waxaan leenahay show IP routingka labada dhinac ka dhexeeya waa inaan aragnaa communicationki mataqaanaa IP addressadii 10. iyo 192 inaan ka aragnaa waa kismaayo marka waa show IP route R waa tana R hadda aragtin waa rep ayuu u taagan yahay waa tana 10.00 waxaa iskale muqdisho 192.168 waa mataqaanaa serialku kaga xiran yahay 15 second waa inta labada hadda aan soo ka fargareynay serial 0/0 ayuu kaga xiran yahay administration distance waa 120 mataqaanaa wuxuu waana point to point waa 1 mataqaanaa labadooda wax u dhaxeeyo mataqaanaa ma ay jiraan that's why one intuu ku qorayaan C-na waa mataqaanaa direct connected C sidoo kale waana direct connected marka waa inaan aragnaa PC-yada siday communication u sameynayaan package ayaan waxaan ka soo diraynaa this PC waxaan usoo diraynaa PC-gan si aan u aragno communicationka labada PC ka dhexeeya in mataqaanaa uu yahay mid marka waad aragtaan aan filayaa haddaan idin soo dhaweeyo automaad wuxuu u wada dirayaa mataqaanaa sidoo kale dhammaantiis kan sidoo kale markaan kan kasoo dirna isagana wuxuu u wada dirayaa all the commander their communication package to package send package to package casharkeeni ku saabsanaa reeb maanta intaas ayuu ku egyahay waxaana idin soo gudbinaya anigoo ah maxamuud cabdi dacar waxaana idinka tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu